السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركلة سود وواضح آدي هذا ومهتمتين ما أنت والسبتي وأنا شاني لباتنك بشكل بعد جانوري سنة كلا بدكون إيه شاني لباتنك ما أنت وربحنا دورة يعني دي هي متكمل الصومالي دي الدنبجي لعقتي مسوق ماسوق لبدا بقولي كنتم كمليون هاد لجوها لي هرانتي بشي جون السنة كي هراء لبدا كوني أفري لباتنك أو شلي الحكومي حد إمس أيا لجو حكومي waan idin la wadaagaya haweeney Soomaaliya oo iyaduna isla dambigaasi ku eedeysnay lacagtaasi 250 milyan oo dambigeedii qiratay ayadana sidoo kale waan idin la wadaagaya wasiirkii gaashaandhigga oo Trump soo magacaabay Pete Hegseth ayaa xalay ay ansixiyeen aqalka Senate-ka kadib markii la isla sinmay ya codka oo lagu ansixiyay ya dhiibtay sidoo kale waan idin la wadaagaya wasaaradda arrimaha dibadda Mareykankana waxay meesha ka saartay baasaboorka Mareykanka dawladii hore Biden waxay dhaqan gelisay in qofkii raba X uu ku qoran karo oo uusan male ama female ama dumar iyo rag uusan ku qoran karin arintaasi wasaaradda arrimaha dibadda meesha ka saartay kadib doorashadii Trump uu yiri anigu lab iyo dhadig wax u dhaxeeyo ma garanayo murankii ka taagnaa aqalka wakiilada ee baarlamaanka ee gobolka Minnesota oo maxkamadda sharci ee gobolka Minnesota shalay gelinkii dambe ay go'aan ka gaartay haddaba dimuqraadiyiinta iyo Republicaanka dhinacay u xukmisay murankii taagnaana sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore aan ku hormaro waxaan ogeyn lacagtii musuqmaasuqa ee 250 milyan ee ururka aan faa'iido doonka ahayn ee Feeding Our Future ay Soomaali fara badan ku harqiyeen oo loogu talagalay xilligii coronavirus-ka in caruurta baahan la siiyo iskuuleyda lacagtaasi oo la musuqmaasuqay 70 qof waa tii dacwada lagu soo ogay 7 kamid ah waa tii dacwadooda ay bilaabatay horaantii bishii dhamaadkii bishii afraad ee sanadkii 2024 ayna soo gabagabowday horaantii bishii lixaad ee isla sanadkii 2024 xilli ay xeerbeegtidu u fadhiyeen in ay dacwadaasi go'aan ka gaaraan waa lacagtii musuqmaasuqa oo $220,000 mid kamid ah xeerbeegtida loo geeyay markii dambana 5 qof loo soo xiray haddaba 5tii qof ee dambiga lagu helay mid kamid ah horey ayaa loo xukumay bishii October Maxamed Jaamac Ismaaciil ayuu ahaa oo 12 sano xabsi ayaa lagu xukumay haddaba shalay ayaa wax oo jimco ahayd waxa mar kale la xukumay Muqtaar Maxamed Shariif oo 34 jir ah waxaana lagu xukumay 210 bilood oo u dhiganta 17 sano iyo barwana xukunkii ugu dheeraa ilaa iyo hadda dadka loo haysto barnaamijkaasi musuqmaasuqa ee Feeding Our Future oo 250 milyan dacwadii ugu badneyd lagu rido Muqtaar waxa isaga uu ku eedeysnaa 6 dambi laakiin 4 kamid ayaa lagu helay sidoo kalena Cabdimajiid Nuur isagana 13 dambi ayuu ku eedeysnaa 10 ayaa lagu helay waxa sidoo kale jiray in Maxamed Jaamac Ismaaciil isaguna uu ku eedeysnaa 4 dambi laakiin 3 lagu helay waxa jirtay Xayaad Nuur oo Cabdimajiid la dhalatay in 5 dambi ay ku eedeysneed isla markaana lagu helay 3 waxaana ugu dheeraa Cabdicasiis Faarax oo isagu 24 dambi ku eedeysnaa oo 23 kamid ah lagu helay marka waxa ilaa hadda la xukumay Maxamed Jaamac Ismaaciil oo bishii October la xukumay oo 12 sano lagu xukumay iyo Muqtaar Maxamed Shariif oo isagana shalay la xukumay oo 17 sano iyo bar lagu xukumay Muqtaar waxa lagu eedeynaya lacag 1.3 milyan in lacagtii caruurta loogu talagalay in lagu quudiyo uu ka musuqmaasuqay haddaba Muqtaar oo shalay lagu ay ka xirnaayeen ayaa maxkamadda la keenay waxaana halkaasi laga shiday muuqaal uu soo duubay oo leeyahay waan ka shalaynayaa waxyaabihii aan sameeyay ama talaabooyinkii aan qaaday laakiin garsooraha maxkamadda oo la yiraahdo Nancy Brazel arintaasi waxba ma aysan ka bedelin fikirkeedii waxayna tiri waxa aad sameysay waa wax ka soo horjeeda markii adigu marqaati furka aad sameeynayso oo dacwadu ay saartay Muqtaar waxa uu ahaa qofka kaliya ee 7 qof ee maxkamadda saarneed xilligaasi marqaati fur sameeyay oo isaga su'aalo la weydiiyay garsooruhu waxa ay tiri Nancy Brazel markii caalamku uu nuglaa isla markaana meeshii ugu xumeed la maray xilliga coronavirus-ka ay ka wada qof caawiye ma aadan noqon laakiin tuug ayaad noqotay waa sida ay hadalka u dhigtay waxa ay sidoo kale tiri wax xushmada uma haysid sharciga marka Muqtaar qareenkiisa oo Andrew Mohrin la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay in Muqtaar sida eedeysanaasha kale oo isagu
uusan si aad ah uga qayb qaadanin musuqmaasuqa, sidaa darteed waa in xukunka laga qafiifiyaa. waxaana qareenka Mukhtaar uu soo jeediyey ama uu codsaday in lagu xukumo inta u dhaxaysa 6 sano ilaa iyo 7 sano, isagoo sidoo kalena maxkamadda weydiistay in la eego dabeecadda Mukhtaar iyo ku lug lahaanshihiisa bulshada. sidoo kalena ku-xigeenka xeer ilaaliyaha oo dacwadan ku soo oogay dadkan, Joe Thompson, ayaa isaguna waxa uu ku dooday in Mukhtaar Shariif uu door muhiim ah ka qaatay musuqmaasuqan, islamarkaana uu la shaqeeyay eedeysanayaasha kale. sidaa darteed markii musuqmaasuqaasi la sameynayay, Thompson waxa uu sidoo kale isaguna soo jeediyey in 22 sano oo xabsi ah laga xukumo. waxa uu sheegay inuusan hogaamiye ahayn, laakiin jeebkiisa inuu buuxsaday ahayd, taasina waa waxa dhacay. Mukhtaar oo xabsi ku jiray ilaa iyo 3 bishii Juun ee sanadkii 2024 markii sheekadii musuqmaasuqa oo $120,000 ay soo baxday. Mukhtaar ayaa sidoo kale garsooraha waxa uu shalay ka hor sheegay, waxa uu yiri in tilaabooyinkaygii ay wasaqeeyeen sumcadda bulshada Soomaalida, isla markaana fikir qaldan laga aaminay. arrintaasi waxay igu tahay culays weyn, waxaana uu sheegay in uu culayskaasi qaadayo maxaa yeelay aniga ayaa arrintaasi sameeyay, ayuu yiri. marka waxay u muuqataa in uu qaranayo dambigiisa. Mukhtaar isaga wax dacwada oo laaluushka la xiriiro laguma soo oogin, laakiin waxa la sheegay inuu wax ka ogaa arrinta laaluushka. sidaa darteed taleefankiisa markii la yiri taleefanada soo wareejiya oo arrinta laaluushka ay soo baxdana, taleefankiisa waxyaabihii ku jiray dhan in uu tirtiray. Mukhtaar ayaa sidoo kale waxaa lagu haystay in taleefankiisa uu ku duubay xilligii dacwadu ay socotay markhaati furka, in taleefankiisa uu ku duubay dacwadda socotay. sidaa darteedna arrintaasi waxay ka soo horjeedaa sharciyada maxkamadaha federaalka, waxaana uu garsooraha ka raaligeliyey inuu taleefankiisa ku duubay maxkamaddu markii ay socotay. waxa uu sidoo kale ka raaligeliyey in taleefankiisa uu ka tirtiray fariin qoraaleedii ay isku dirayeen markii arrinta laaluushka bixinteeda ay socotay. waxa uu yiri waan ogahay inay qalad ahayd, arrintaasina waxa igu sababay maadaama aan cabsanayay qalqal xooggan xilligaasi u haystay, sidaa darteed ayaa igu sababtay inaan taleefanka tirtiro. arrintaasina waa uu ka raaligeliyey garsooraha. dacwadda xigta oo dadka loo haysto barnaamijkan Feeding Our Future waxa ay bilaaban doontaa ku dhawaad 2 toddobaad kadib 3 bisha 2 ee soo socota ee February, waxaana la soo taagayaa 4 qof oo ay ku jirto Amy Park, haweeneydii madaxda ka ahaan jirtay ururka Feeding Our Future oo aan faa'iido doonka aan ahayn. sidoo kalena shalay waxaa mar kale dambigeeda qiratay iyadana haweeney ku lug lahayd musuqmaasuqaasi oo Ayaan Faarax Abuukar la yiraahdo oo 43 jir ah. hal dambi ayay qiratay oo ah in ay ku kacday khiyaano ah in lacaga ay xawishay. sidaa darteedna waxaa la xukumi doonaa waqti aan la sheegin oo garsooraha ayaa go'aan ka soo gaari doona. sida dokumentiyada maxkamadda ay muujiyeen, haweeneydan waxa ay aasaastay urur la yiraahdo Action for East African People. sidaa darteed oo aan faa'iido doon ahayn, dhowr goobood ayayna sheegaysay inay cunto ka bixinaysay. waxaa lagu eedeynayaa inay heshay 5.7 milyan oo lacagtaasi ka mid ah. sidaa darteedna waxa ay bixisay lacaga la yiraahdo kickbacks oo ah qofkii shaqaalaha ee lacagtaasi u soo dhameeyay inay siisay $330,000 shaqaale ka tirsan Feeding Our Future. waxaana xeer ilaaliyaha xafiiskiisa uu sheegay in ay lacaga malaayiin dollar ay ku bixisay hanti ganacsi ay ku lahayd Lakefield. sidoo kalena diyaarad ayayba iibsatay, marka inay Kenya ka iibsatay ayaa loo maleynayaa. diyaarad ayay iibsatay. 70kii qof ee dacwadan lagu soo oogay 250 milyan inay maasuqeen xilligii coronavirus oo loogu talagalay caruurta in lagu siiyo cunto. 5 ka mid ah waa tii dambigoodii lagu helay, ilaa hadda 2 ayaa la xukumay. 24 qofna dambigooda ayay qirteen. sidoo kalena inta kalena waa ay harsan yihiin in dacwadoodu ay bilaabato. marka sidaasi ayaa xukunku shalay uu ku dhacay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay waxa ay tiri xilligii Biden sanadkii 2022 bishii Abriil ayaa waxa ay sameeyeen in qofku baasaboorkiisa haddii uu rabo male ama female ama rag iyo dumar uusan ku qoran karin oo X ku qoran kara calaamada X-ka, macnaha waxaan ahay ma garanayo. wasaaradda arrimaha dibadda arrintaasi meesha waa ay ka saartay. waxa ayna markii Trump maalintii la dhaariyay Isniintii khudbadii uu jeedinay waxa uu ku yiri aniga rag iyo dumar wax ka dhaxeeyo ma aqaan. Trump horta intaasi waa uu ku wanaagsan yahay. waxa uu yiri rag iyo dumar wax ka dhaxeeyo ma garan. walow hadda sharcigan dadkan qowmadoodka oo federaal yahay oo loo baahan yahay Congress in la horgeeyo oo mar kale dib loo ansixiyo, laakiin meelo kala duwan ayaa wareegto uu ku soo saari karaa. laakiin guud ahaan wadanka dadkan inay iskuursadaan Trump kama mamnuuci karo. Congress ayaa meel mariyay, marka arrintaasina Congress ayay u baahan tahay. marka wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale meeshii gender lagu qori jiray baasaboorka Mareykanka hadda kadib sex ayaa lagu qori doonaa. calaamadii X-kana meesha waa laga saaray. waxay yiraahdeen rag iyo dumar wax ka dhaxeeyo ma garanayno.
sidoo kalena xalay ninkii Trump uu magacaabay wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth ninkaasi oo lagu eedeynayay falal galmaha iyo inuu qamriga si aad u cabo ayaa xalay sanadku ay isla sinmeen saddex xubnood oo Republican maadaama aqlabiyadda sanadka hadda ay leeyihiin Republicanku 53 ay leeyihiin dimuqraadiyiintana 47 saddex xubnood oo Republican ayaa ka soo horjeestay marka 50 iyo 50 ayay noqotay saddexda xubnood oo ka soo horjeestay waxa yihiin Mitch McConnell oo Kentucky laga soo doorto Susan Collins oo Maine laga soo doorto iyo Lisa Murkowski oo laga soo doorto Alaska marka maadaama 50 iyo 50 ay noqdeen madaxweyne ku-xigeenka wadanka JD Vance ayaa wuxuu yahay madaxweynaha aqalka sanadka isaga ayaa loo wacay maadaama 50 iyo 1 cod loo baahan yahay in lagu meel mariyo waa uu yimid markii uu yimidna waxa uu yiri waxa jira qof senatarka ka xubna ka tirsan oo doonaya inay codeeyaan ama codkooda ay bedelaan maya sida darteed codkii la dhiibtay waa 50 iyo 50 ayuu yiri maadaama uu madaxweyne ku-xigeenku uu yahay madaxweynaha aqalka sanadka sida darteed cod 50 iyo 1 ayaa lagu ansixiyay wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth Trumpna waa u soo hambaliyay waana kan madaxweyne ku-xigeenka wadanka JD Vance oo ah madaxweynaha aqalka sanadka markii uu ku dhawaaqayay in wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth ee aqalka sanadku ay meel mariyeen wasiirkii saddexaad ee ilaa hadda wasiiradii Trump uu soo magacaabay la meel mariyay hore wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio ayaa la meel mariyay oo isaguna xalay joojiyay dhammaanba gargaarkii wadamada ajnabiga ah ee Mareykanku siin jiray marka laga reebo wadamada Masar iyo Israa'iil muddo 90 maalmood oo waan joojinay ayuu yiri wax gargaar ah wadamo ajnabi ah ma siin doono safarkiisa ugu horeeyay waxa la filayaa inuu toddobaadka soo socdo Panama ku tago oo Trump uu leeyahay kanaalka Panama waa inaan dib u soo ceshanaa hadda Shiinaha ayuu gacanta u galay anaga ayaa markii hore dhisnay sida darteed waa in hadda gacanteena uu dib ugu soo laabtaa Panama ayuu ku tagi doonaa wasiirka arrimaha dibadda safarkiisa ugu horeeyay marka awoodda madaxweyne ku-xigeenka ee aqalka sanadka Kamala Harris intii ay 4 sano madaxweyne ku-xigeenahayd 33 jeer ayay isticmaashay halka Mike Pence oo Trump madaxweyne ku-xigeen u ahaa 4 sano xilka hayana 13 jeer uu isticmaalay sidoo kalena madaxa hay'adda CIA sirdoonka John Ratcliffe ayaa isagana la meel mariyay oo Mike Pence uu daariyay markii wasiirka arrimaha dibaddana talaadadii hore la meel mariyay ugu dambeyntii murankii ka taagnaa aqalka hoose ee Congress-ka ee baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa maxkamadda sare shalay galinkii dambe ay go'aan ka gaartay waa tii lagu muransanaa quorumka ama aqlabiyadda ayaa iska leh 67 xubnood ay Republican ku leeyihiin dimuqraadiyiintuna waxay lahaayeen 66 sida darteed 14 bishan markii uu furmay kalfadhiga dimuqraadiyiinta waa diideen inay xaadiraan maadaama awood qaybsi Republicanku ay diideen sida darteed Republicanku waxay ku andacoonayeen hal kursi oo dheeri ayaan haysanaa waa 133 hadda aqalka hoose ee baarlamaanka gobolka Minnesota dimuqraadiyiintuna 66 ayay leeyihiin xogayaha gobolka maalintii markii uu tagay uu furmayay quorumku ma dhameystirna yiri way iska soo ceeriyeen afayeen ayay doorteen muddo 2 toddobaadana dimuqraadiyiintu ma aysan tagin Republicankuna hawshooda ayay iska wateen khamiistii marka garsoorayaasha toddobada maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa dhageystay kiiska shalay galinkii dambana qoraal ka kooban 3 bog ayay soo saareen waxay yiraahdeen quorumka uu ku furmi karo oo shaqada aqalka Congress-ka ama aqalka baarlamaanka gobolka Minnesota ay ku socon karto waa 68 sida darteed labadii toddobaad waxyaabihii ay qabanayeen Republicanka afayeenkii ay doorteen waa waxba kama jiraan maanta iyo bari ayay wada hadli doonaan awood qaybsi inay ku heshiyaan ayaa loo baahan yahay sida darteed dhinaca dimuqraadiyiinta ayaa maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ay u xugmisay waxaana la filayaa isniinta soo socota inay ku laabtaan shaqada aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Minnesota awood qaybsina lagu heshiyo hal kursi ayaa jira oo Roseville iyo waliba Shoreview oo ninkii ku soo baxay leeyahay 6 bilood ka hor ma uusan deganayn meesha iyadoo sidoo kalena gudoomiyaha gobolka uu qoondeystay 28 bishan inay dhacdo maxkamadda sare ayaduna toddobaadkii la soo dhaafay diiday waxay tiri kalfadhiga baarlamaanka marka uu furmo 22 maalmood kadib ayaa la go'aamin karaa xilliga doorashadaas ay dhacayso marka horaanta bisha March ayaa la filayaa inay dhacdo sidoo kalena kursi kale oo waxaa jiray muran isaguna uu ka taagnaa oo Republicanku ay dhahayeen maadaama 14 cod oo kaliya uu ku guuleystay ninka la yiraahdo Brad Tabke oo laga soo doorto Shakopee 10973 cod ayuu helay Aaron Paul oo Republicankana 10959 ayuu helay marka 14 cod ayaa uu ku sareeyay Republicankuna waxay leeyihiin doorashadaasi waa in ku celis codadkaasi dib loo tiriyo marka maadaama maxkamaddu ay u xugmisay ninka dimuqraadiga ee la yiraahdo Brad Tabke shalay ninkii Republicanka ee la tartamay waxa uu yiri waan kartay in laga adkaaday maxkamadna ma aadi doono marka sidaasi ayaa doorashada marka maxkamadda sare ay ku xugmisay in Republicanku labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxyaabihii ay sameeyeen waxba kama jiraan yihiin dimuqraadiyiintu isniinta ay dib ugu laaban doonaan kalfadhiga waxaana la filayaa awood qaybsi inay ku heshiyaan ilaa iyo doorashadaasi horaanta bisha March kursigaasi uu ka dhici doono 67 markay noqoto maadaama 34 uu yahay aqalkuna markaas kadib awood qaybsigooda ayaa labada sano ee soo socota ay ku sii shaqeyn doonaan waxa la leeyahay xitaa kulan qaas in gudoomiyaha gobolka uu ku baaqi doono ayaa loo maleynayaa
maadaama miisaaniyadda gobolka loo baahan yahay in la ansixiyo ka hor bisha June miisaaniyadda labada sano ee soo socota 2 toddobaadna hadda qasaartay marka waxa loo baahnaan doona waqti dheer waxa laga yaabaa gudoomiyaha gobolka in kulan qaas ah oo xubnaha isugu yeeri doono marka uu kalfadhigoodu dhamaado si waxyaabaha u dhiman ay u dhameystiraan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo